marka Caaisha markay doonto nin kamida ragga inuu u soo galo oo ka maarmahay waxay amri jirtay walaasheed ila Caaisha xumay dhalin mowti waxay amri jirtay walaasheed Kaltuum ninka shakhsi bay oran jirtay ila habariyay bay markaa u noqonaysaa marka Kaltuum oo walaasheed hooyo u noqoto ninka shakhsiiso iyana habariyay bay doono noqonaysaa Caaisha shakhsi أو بنات أخيها فأرضعته أما waxay oran jirtay walaalkeed gabdhihiisa waa gabdhaha ay u tahay maxay edada ayay oran jirtay shakhsiyan ninkan markaasay shakhsiin jireen waa ninkay doonaysa Caaisha inay u soo gasho say doonaysa baa noqotay ay doonaysa inuu ninkaas u soo galo in badan oo ay ka maarnayn waxa kale tay soo qaadanayaan qolada madhabkan li ay leeyihiin ruuxa weyniba hadduu jaqo hooyay u noqonaysaa gabadhu xadiidka Sahla bintu Suhayl ee ay tiri rasuulka Allah Salim oo ah nimay xoreeyeen weeyaan Salim macana fi baytina wuna la jooga sayna xadiiska hore ku soo marin ay ahayd anigii ay Xudayfa guri kaliya noola horan jiray ويراني فضلي بي كصدرتي وليبا ما كان حجابني نرك عادي قال حني جدكي انت كلو ارك جربين لا كصدرت عزيز كان رسولك ويديسي غورغون ولو هيدابت رساله وقد بلغ ما يبلغ الرجال وحارو غاري رغ waxay gaareen hadis kale waxa ku sugan inuu gad lahaa hana nin weyn bay u jeedaan nin weyn bay u jeedaan rasuulku wuxuu yiri ardiihi tuharrimi alayhi nuuji حرام بدك نقول صحيح. وكيري رسولك عليه الصلاة والسلام سهلة بنت سهيل نكا قال كله مولاها جاء إذا قريجا إذن له إذا نوجي حرام بدك نقول صحيح. وواحد عمر كان نقضي بمنزلة ولدها البنية دي وكلا أيون نقضي من الرضاعة مسلم بحديث كان ولي وحديث صحيحة وإنه السبني ليس فيه ثبوت كلام أنه هذا الكتير ويا إنه حديث كان السبني